halkani waa deegaanka kala sharka galbeedka degmada Garadag waxaana ku sugan in ka badan 700 oo qoys oo barakacayaal waxayna sheegeen xaaladooda nololeed inay tahay mid aad u hooseysa waxayna cabasho ka muujiyeen dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo baadka iyo biyaha waxayna baaq u dirayeen xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan waxaana hadalladoodii kamid ahaa waxaan nahay barakacayaasha jooga meesha la yiraahdo Karashalka taakulo inayna taakuleeyaan biyo iyo baadba ayna taakuleeyaan baan ka codsanaynaa haday tahay waxbarasho iyo haday tahay hadii bidinkeeda leeyahay manfac iyo dhaqaatiir iyo hadii bidinkeeda leeyahay wax walba caafimaad wax walba waan u baahanahay waxaan u baahanahay in gurma degdega naga soo gaaro baahi biyood waxyaalo badan baan u baahanahay waan ka codsanaynaa hay'adaha saasan iminkan wax noogu daran biyaha noogu sii daran hadeero biyihii biyo macaan biyo qaraar baan cabnaa oo biyaha hadeer noogu adag biyo baadba waan u baahanahay biyahana noogu adag marka yaasha ku nool Kalashaka waxaan ka cabanaynaa baahi lixaad leh oo najabisay lafaha hadii ay tahay cunto iyo biyo wixii naloo aasaanay iminka waxa weeyaan haraad dawladda hay'adaha waxaan ka codsanaynaa in nala soo gaadho gurma degdeg ah daanu nahay barakaca ku nool baahi waan haysaa saddex bilood ba waxaan dhulka Ilaahay naga siiyo mooyaane waxaan u leeyahay ma karsan araadnada waan hayaa idinba waa ogtay araadayna maxaan u codsan weyn wax walba waan codsanaynaa biyo waa codsanaynaa caafimaad waa codsanaynaa wax walba sidatan waraan Maxamed Raan Ariel TV Garadag